لا شك أن محمدًا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع برنامج كان ومعناها خاتم النبيين. ومحي معناها خاتم النبيين. وحال يدي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وسورة الأحزاب وهي آيات 41. جماعة أحمدية ويرميسن يهين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يهي خاتم النبيين. سيدي قف مسلم oo kitaabka qur-aanka rumaysan aan u rumaysnayn ama loo odhan karaa ma rumaysna in rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam yahay khaatam annebiyiin. waanu rumaysannahay in nebigeenna muxamed sala allahu calayhi wasalam yahay sida allah qur-aanka inoogu sheegay khaatam annebiyiin. waxaase u baahan in la isweydiiyo waa maxay macnaha khaatam annebiyiin. culimada qaarkood waxay qabaan in macnaheedu yahay in rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam yahay nebigii u dambeeyey oo ilaa qiyaamaha aan nebi dambe aanu iman doonin. inta aanan u gelin fahamka jamaacada axmediya aan isla eegno macnahan culimada qaar ay rabaan inay inoogu fasiraan in rasuulkeenu yahay nebigii u dambeeyey. macnahani miyuu waafaqsan yahay kitaabka qur-aanka iyo axaadiista rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam? waxaan qabnaa in aanu waafaqsanayn. waxaana u daliil ah aan ku horeeyo axaadiista. rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aakhira zamanka nebi ciise ayaa imanaya, allena waa u waxyoon doonaa. axmediye iyo muslimiinta kale ee aan axmediye ahayni way isku waafaqsan yihiin in nebi ciise calayhi salaam marka uu yimaado uu nebi ahaan doono, allena u waxyoon doono. waxay isla ogol yihiin in nebi ciise calayhi salaam uu diinta islaamku raaci doono iyo shareecada islaamka
inaanu diin cusub iyo shareeco cusub aanu keeni doonin, inuu sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam uu raaci doono, inuu khaadim u noqon doono khaatama nebiyiin, inuu xoojin doono ummadda islaamka, inuu dili dajaal, inuu diinta islaamka meel walba gaarsiin doono. nebinimada nebi ciise waa nebinimo diinta islaamka iyo shareecada islaamka aan waxba ka bedelayn. waa nebinimo xoojinaysa diinta islaamka. si fiican u faham, nebi ayaa iman doona khaatima nebiyiin ka bacdi, waxyina heli doona. marka hore maxaa u daliil ah in nebi ciise calayhi salaam nebi yahay marka uu yimaado, iyo inuu waxyi heli doono? xadiisyo badan oo laga wariyey rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ayaa inoo caddaynaya. waxaana ka mid ah xadiis lagu wariyey saxiixa muslim oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yidhi, waxa weeye waktiga muxuu ahaa yaajuuj iyo yamaajuuj ay muxuu ahaa ay iman doonaan. id awxa allaahu ilaa ciisa inii qad akhrajtu cibaadan lii laa yadaani liaxadin biqitaalihim. haddaad xadiiska u fiirsato, rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay id awxa allaahu, waxaa ilaahay u waxyoon doonaa nebi ciise. rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam sida imka aan idiin sheegay, waxaa xadiiskan uu caddeynayaa in nebi ciise loo waxyoon doono, oo alla ku odhan doono waxaan soo saaray quruumo magaranaysa aan xoog la iskaga celin muxuu ahaa karin. waa markaa muxuu ahaa ay soo baxayaan yaajuuj iyo yamaajuuj. isla xadiiskan rasuulku 4 jeer ayuu ku magacaabay nebi ciise nabiyullah 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 nabiyullah. waxaanu ereyada rasuulka ka mida sala allahu calayhi wasalam, yuxsaru nabiyullaahi ciisa wa asxaabuhu fayargabu nabiyullaahi ciisa wa asxaabuhu uma yaxbidu nabiyullaahi ciisa wa asxaabuhu fayargabu nabiyullaahi ciisa wa asxaabuhu. 4 jeer baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu isla xadiiskan uu ku magacaabay nebi ciise inuu yahay nabiyullaahi 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 nabiyullah. waa 4 jeer weeye. waxaa kaleo rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam laga wariyey inuu yidhi, isaga iyo nebi ciise nebi uma dhexeeyo. xadiiskan waxaa wariyey abi daawuud. waxaan rasuulku yidhi, waxaan ka soo qaadanayaa inta mawduucan khusaysa. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, laysa baynii wa baynuhu nabiyun, yacni ciisa. markaa waad arkaysaa xadiiskan in rasuulku uu ku magacaabay inuu nebi yahay. axaadiistan marka aan soo sheegay waxay inoo caddaynayaan in nebi iman doono khaatama nebiyiin ka bacdi, waxyina heli doono. macnuhu yahay in aanu waxyigu go-in oo istaagin, laakiin ma aha waxyi diin cusub keeni doona ama shareeco cusub. axmediye iyo muslimiinta aan axmediye ahayni iskuma khilaafsana fahamkan, way isla ogol yihiin. waxa u dhaxeeya waa aqoonsiga weeye, waa aqoonsiga nebigan soo noqonaya ka uu yahay. ma nebigii reer banu israa'iil loo soo diray ee maryan ay dhashaybaa, mise waa addoon ummadda nebi maxamed ka dhalanaya
oo magac ahaan nebi ciise ah. culimada aan axmediye ahayn waxay qabaan in nebigan imanaya yahay nebi ciise laftiisii oo hadda samada ku nool. jamacada axmediya waxaan aaminsannahay in nebigan imanaya yahay addoon ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ka dhalan doona, kaasina cid kale ma ahee waa mahdiga. sida marka axaadiista rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ka sugan, haddii marka uu nebi iman doono aakhira zamanka, waxayna ku soo degi doono khaatama nebiyiin, macnaheedu markaas sinaba uma noqon karo in nebigeynu sala allahu calayhi wasalam yahay nebigii u dambeeyey. waa in khaatama nebiyiin ay markaa macno kale ay leedahay. aan eegno xadar caaisha radia allahu canha siday u fahantay macnaha khaatama nebiyiin. waxaa laga wariyey xadar caaisha radia allahu canha inay tidhi, quuluu bay tidhi, dhaha inahu khaatamu اlanbiyaa'i walaa taquuluu laa nebiya bacdahu. waa duru manstuur weeye. waxay tidhi dhaha waa khaatamu اlambiyaa, laakiin ha odhanina nebi kama dambeeyo. waa fahamka xadar caaisha radia allahu tacaala canha. xadiiskan kalena aan isla eegno. markuu geeriyooday wiilkii rasuulka ibraahim radia allahu canhu, waxaa laga wariyey in rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi, low caasha lakaana sidiiqa nebiyan. wuxuu yihi haddii ibraahim alla raalliha ka noqday uu noolaan lahaa, wuxuu noqon lahaa sidiiq nebi ah. rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam isagoo og inuu yahay khaatama nebiyiin ayuu haddana yidhi haddii uu noolaan lahaa wuxuu noqon lahaa sidiiq nebi ah. waxaan ka fahmaynaa in maqaamka nebinimadu u furan tahay ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. waxaana lagu gaadhi karaa adeecista rasuulkeena, sida alla yidhi, acuudu billahi min ashaytaan arajiim, waman yudic illaaha warasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i waاsaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa. waa suuradda waxa weeye annisaa aayadda 7. waxaan aayaddan ka fahmaynaa inay shardi tahay adeecista rasuulka sala allahu calayhi wasalam si uu qofka muslimka ahi alle ugu dhowaado ama alle ugu manaysto 4 maqaam ruuxaaniga ah ama 4 maqaam alle u dhowaanshaha ah. ta u sareysaana ama ta alle ugu dhowina waxa weeye nebinimada. ta ku xigtaa waa sidiiqnimo. heerka kale waxa weeye shahiidnimo. heerka u hooseeyaana waxa weeye waa saalixnimo. markaa saalixnimo iyo shahiidnimo iyo sidiiqnimo iyo nebinimo 4 maqaam 4 darajo qofku wuxuu gaari karaa haddii uu adeeco alle iyo rasuulka muxamed sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam. nimcooyinka aayaddan alle ku xusay waa kuwa aynu salaad walba ku ducaysano marka aynu leenahay ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim, oo ah nagu hanuuni jidka toosan, jidka kuwii aada u nimcaysay ay mareen.
waa kuwii kuwaasi waa kuwa aayaddu inoo magacowday ee ah maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasadiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waa afartan maqaam ee aayaddu inoo magacowday khaatima annabiyiin marka ma xidhayso dhowaanshaha alle iyo maqaamada sare iyo darajooyinka alle u dhowaanshaha ee way furaysaa waxaase shardi ah adeecista nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam waa aaminka iyo ku camalfalka kitaabka qur-aanka ah aan eegno sida rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam inoogu sharxay macnaha aakhiru lambiyaai taasoo culimada qaar u daliishadaan inuu yahay nebigii u dambeeyey wuxuu yihi rasuulkeenu xadiiskan waxaa wariyey waxaa soo saaray saxiix muslim rasuulkeenu wuxuu yihi fainii aakhiru اlambiyaai wa ina masjidii hada aakhiru lmasaajid waxaa rasuulku yihi waxaan ahay ambiyada kii u dambeeyey masjidkayguna waa masjidkii u dambeeyey in masjidka nebigu yahay kii u dambeeyey macnaheedu ma aha in aan la dhisi doonin masaajido dambe sidoo kale aakhiru lambiyaai ma aha in nebi dambe aanu iman doonin waxaan ka soo hadalnay in nebi ciise iman doono aakhira zamanka macnuhu marka waxa weeye sida masjidka nebigu u yahay tusaale oo ay tahay masaajidada la dhisi doonaa in ay ka tusaale qaataan xagga dhismaha qiblada ujeeddada loo dhisayo in alle lagu caabudo sidoo kale ayaa rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam u yahay tusaale in ambiyadii ka horeysay iyo nebiga imanaya aakhira zamanka dhammaantood ay ka tusaale qaataan oo sifooyinka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wax ka mid ah ay la yimaadaan waxaa kale rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu inooga digay in 30 dajaal oo nebinimo sheegan doona oo kulligood beenalayaal ahi ay iman doonaan wuxuu misna inoo sheegay in isaga iyo nebi ciise aan nebi u dhaxayn macnuhu waxa weeye 30 dajaal ee nebinimada sheegan doona iska ilaaliya laakiin isla markaa hamoodina in nebi ciise ka mid yahay 30 dajaal oo hadiidina nebi ciise rasuulku wuxuu yidhi raaca nebi ciise oo beeca ka qaata axdi la gala wuxuu yidhi salaan iga gaarsiiya wuxuu yidhi waa imaam mahdi axaadiista intan aan idiin sheegay muxuu ahaa inoo sheegaysaana waa kuwan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu waa ibna maaja weeye xadiiskanu faidaa ra'aytumuuhu fabaayicuuhu walow xabwan cala thalaj fainahu khaliifat llahi almahdiyi xadiis kale oo duri mansuur ah wuxuu yidhi man adraka minkum ciisa bna maryama falyaqra'hu mini salaama markaa rasuulku 30 dajaalla wuu inooga digay haddana wuxuu yihi hamoodina nebi ciise inuu kuwaa ka mid yahay rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam nebi ciise ayuu ku sheegay inuu yahay nebiga aakhira zamanka alle u idmi doono ummadda nebi maxamed waxaana rasuulku yidhi kayfa tahliku ummatun ana awaluhaa wa ciisa bnu maryamu aakhiruhaa sidee weeye ummadi u halaagantaa waa ummadda nebi maxamed anna aan u horeeyo ciise ibnu maryamna u dambeeyo marka haddaba haddii aynu eegno axaadiistan aan soo sheegnay ee ah in nebi ciise iman doono aakhir zamanka nebi yahay
waxyi ku soo degi doono in rasuulkeenu yidhi haddii ibraahim alla raaliha ka noqday uu noolaan lahaa wuxuu noqon lahaa nebi in xadrat caaisha alla raaliha ka noqday laga wariyey inay tidhi ha odhanina nebi kama dambeeya waxaad tidhaahdaan waa khaatama nebiyiin in xadiidka kale rasuulkeenu muxuu ahaa rasuulku yidhi waxaan ahay aakhiru ambiyaa uu inoo sharxay oo uu inoogu sharxay in masjidkiisuna uu yahay aakhiru masaajid haddana macnuhu aanu ahayn masjid dambe lama dhisi doono in rasuulkeenu muxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam uu yidhi aniga iyo nebi ciise nebi nooma dhexeeyo isla markaana rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam yidhi aakhir zamanka waxaa iman doona muxuu ahaa nebi ayaa iman doona waa xadiiskii uu yidhi ummadda anna waan u horeeyaa nebi ciisena wuu u dambeeyaa marka intaasoo dhan la isu geeyo waxaa inoo cad in macnaha khaatama nebiyiin aanay ahayn in nebigeenu yahay nebigii u dambeeyey nebi iman karo laakiin aanu diin cusub iyo shareeco kale midna aanu keeni doonin aan marka eegno qur-aanka marka qur-aanka la raaco maqaamka nebinimada maqaamka alla u dhowaanshaha ah ee nebinimada marka qur-aanka la raaco ummadda nebi maxamed way gaari karaan waxaa alla ku yidhi qur-aanka acuudu billahi min ashaytaan arajiim allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas in allaha samiicun basiir waa suurat alxaj weeye aayadda 76 macnuhu yahay in alle ka doorto kana dooran doono malaa'igta iyo dadka rusul waxaa kaloo alla yidhi acuudu billahi min ashaytaan arajiim yaa banii aadama imaa yaأtiyannakum rusulu minkum yaqusuuna calaykum aayaatii faman itaqaa waaslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waa suurat alacraaf weeye aayadda 36 macnuhu yahay bani aadamow waa inaka weeye hadday idin yimaadaan rusul idinka mid ah oo idinka warramaya aayaadkayga ciddii alla ka cabsata wanaagna fasha cabsi uma iman doonto mana murugoon doonaan waxaa aayaddan ku cad in rasuul iman karo yani labada aayadood imkaan idiin sheegay labadu waxay inoo sheegayaan in ummadda nebi maxamed uu nebi inay gaari karaan maqaamka nebinimada ma jirto aayad keliya oo odhanaysa alle wuxuu yidhi waan joojiyey rusushii aan soo diri jiray waxaa marka axaadiista iyo qur-aanka marka aynu isu geyno waxaa markaa inoo cad ama waxaan ka fahmaynaa in ummadda nebi maxamed maqaamka nebinimadu u furan yahay oo ay gaadhi karaan fahamka jamaacada axmediya waxaan rumaysannahay in rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam yahay khaatama nebiyiin waa maxay tahay marka hore nebinimo maa maxay muxuu ahaa macnaheedu waa maxay nebinimo waa nimco waa fadli alle waa maqaam ruuxaani ah waa maqaamka ugu sarreeya ee alle u dhowaanshaha weeye alle ayaa ka uu doono ku manaysta sida alle uu yidhi dalika fadlullaahi acuudu billahi min ashaytaan arajiim dalika fadlullaahi
yu'tiihi man yashaau wallaahu dulfadli alcadiim. waa suuratuljimca weeye aayadda 5. nebinimadu waa fadli alle weeye, marka alle kii uu doono ayuu siiyaa. nebinimada ayaa sii kala saraysa, sii kala fadli badan, sida alla yidhi acuudu billahi min ashaytaan arajiim tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd. waa albaqara weeye aayadda 254. waxaa kale uu alla yidhi acuudu billahi min ashaytaan arajiim walaqad fadalnaa bacda annabiyiina calaa bacd. waa banu israa'iil aayadda 56. marka nebiyadii baa sii kala fadli badan iyo rusushii. maqaamka nebinimada iyo rasuulnimada ee ugu fadliga badan ee ugu sareeya ayaa khaatam nebiyiin ah. macnuhuna noqon karo in rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam yahay ka ugu fadliga badan, khaatam nebiyiin ay macnaheedu waxa weeye afdalahum ka ugu fadliga badan le weeye. waayo ambiyadii iyo rusushii baa sii kala sareysa, u sii kala dhow ilaahay. in rasuulkeenu leeyahay sifooyinkii ambiyada kale oo dhan laga soo bilaabo nebi aadan dhammaantood calayhi salaam, nebi kastaana sifo ka mid ah sifooyinka khaatama nebiyiin leeyahay. rasuulkeenu wuxuu leeyahay sifooyinkii ambiyada oo dhan, nebi kastaana wuxuu leeyahay sifo ama sifooyinka nebi maxamed qaar ka mid ah. bacdamaa rasuulkeenu yahay khaatama nebiyiin, kitaab dambe ma soo degi doono, shareeco dambe lama soo dejin doono, waayo labaduba way dhammaystiran yihiin. laakiin sidaa macnaheedu ma aha in xidhiidhka alle uu ka go-ay ummadda nebi maxamed. in maqaamka nebinimada lagu gaari karo fadliga khaatama nebiyiin, yani waxaan ka fahmaynaa axaadiista iyo qur-aanka in fadliga nebi maxamed lagu gaari karo maqaamka nebinimada. waxaase shardi ah in addoonkaasi yahay halkan waxoogaa aan mar kale idhaahdo si aan muxuu ahaa aan mugdi aan u gelin. waxaa weye maqaamka nebinimada waxaa lagu gaari karaa fadliga khaatama nebiyiin oo nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam. waxaase shardi ah in addoonkaasi yahay ummaddiisa, si walbana uu adeecay, raacay kitaabka alle, shareecadiisa, sunnihiisa dhanna aanu uga leexan, oo si buuxda u raacay rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam. aasaasaha jamaacada axmediya mirza qulaam axmed calayhi salaam wuxuu yidhi fadliga aan xagga alle ka gaadhay oo dhan waxaan ku gaaray adeecista iyo fadliga rasuulkeena moxamed sala allahu calayhi wasalam. su-aashu waxa weeye qof kastaa miyuu iska sheegan karaa nebinimo? yaan loo qaadan in qof kastaa iska sheegan karo inuu nebi yahay, iyada oo ay suurtagal tahay in ummadda nebi maxamed fadliga nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ku gaadhi karaa maqaamka nebinimo. ayaa haddana rasuulku sala allahu calayhi wasalam inoo sheegay in nebi quri iman doono aakhira zamanka, inooga digina 30 dajaal oo wada sheegan doona nebinimo. yaan markaa loo qaadan albaab iska furan oo qof kastaa iska odhan karo waxaan ahay nebi baan ahay. haddaan eegno marka aayadda suurat alaxzaab acuudu billahi min ashaytaan rajiim maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin wakaana allahu bikulli shayin caliima. macnaha aayaddani wuxuu inoo sheegayaa maqaamka sare ee uu rasuulkeenu leeyahay ee hadda aan ka soo hadalnay. macnuhu waxa weeye maxamed aabe uma aha mid idinka mid ah, laakiin waa rasuul alle. rasuul waa maqaam alle
u dhowaansho ah oo ah mu'miniintoo dhan ayuu aabe u yahay. waxa kale oo uu yahay khaatamannebiyiin, waa maqaam kale, waa darajo kale. maxay tahay khaatam? khaatam afka af arbeedka waa shaambad waxa lagu sharci gareeyo, lagu ansixiyo, ama waa kaatun la isku qurxiyo. macnuhu yahay muxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ansixiyaa nebinimada ambiyada kale oo dhan, waayo wuxuu leeyahay sifooyinkii ambiyada kale oo dhan ayuu leeyahay. waa in nebi kastaa sifo ka mida sifooyinka nebi maxamed la yimaadaa. u fiirso fahamka culimmada aan axmediye ahayn sida ay rabaan inay u fasiraan. waxay qabaan in nebi maxamed yahay nebigii u dambeeyey. macnuhu yahay maqaam nebinimo addoon ka mida ummadda nebi maxamed ma gaadhi karo, xitaa hadduu yahay nebi taabacsan diinta islaamka iyo shareecada islaamka oo xoojinaya diinta islaamka. isla markaa waxay qabaan in aakhir zamanka ummadda nebi maxamed ay u baahan doonto nebi, waayo fidmo weyn ayaa iman doonta. waa fidmada dajaal. waxaa markaa loo baahan doonaa nebi dila dajaal kabacdina xoojiya diinta islaamka, adduunka oo dhanna islaamka gaarsiiya. waxay qabaan in baahida ummadda islaamku nebi u baahan doonto uu buuxin doono nebi ciise. u fiirso, nebi ayaa loo baahan doonaa alle u waxyoodo. ummadda nebi maxamed baa nebi u baahan doonta, laakiin kama dhalan karo ummadda islaamka. wuxuu ka imanayaa reer banu israa'iil, oo waa nebi ciisahan ay qabaan inuu samada ku nool yahay. jamaacada axmediya waxaan aaminsannahay in nebigaas uu ka dhalanayo ummadda nebi maxamed. haddaan soo koobo, khaatama nebiyiin macnaheedu ma aha in rasuulkeenu yahay nebigii u dambeeyey, waayo la iskuma khilaafsana in nebi imanayo aakhir zamanka. khaatama nebiyiin marka axaadiista iyo qur-aanka la raaco waa maqaamka u sareeya ee nebinimada. maqaamkana waxaa leh rasuulkeena sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam. waa maqaam ammaan ah, waa maqaam aan ambiyada kale aan la wadaagin rasuulkeena sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني.